muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa gawaarida ugu casiisan caalamka waana kuwa ugu qaalisan dunida ilaa hadda aan la goyn karin qiimahooda ilaa ay iibsadaan dadka qaniga. Shirkadda Rolls-Royce waxay soo saartay gaarigeeda ugu casiisanaa dunida. waxaa la filayay inay lacag yar ku daafurto, laakiin xaflad ka dhacday dalka Talyaaniga ayaa lagu daafuray qiimo dhan $30 milyan oo dollarka Mareykanka. gaarigan aad u jeedaan sida caadiga waxaa lagu farsameeyay qaab farshaxameed cajiib ah iyadoo laga sameeyay agab aluminiyam ah. tani ayaa ka mid ah naqshadaha casriga ee laga sameeyo gawaarida iyadoo la ilaalinayo nidaamka midabka. gaarigan waxaa lagu qaabeeyay midab dahabi ah sida ubaxa oo kale. gaariga labaad, shirkadda Bugatti ayaa ugu dambeyntii sii daysay sawirada gaariga magaciisu yahay La Fiorente Noire, kaas oo la dhameeyay naqshadeyntiisa sida sawirka ka muuqata. La Fiorente waxaa loo sameeyay si loogu dabaaldego sanad guurada 110aad ee shirkaddan Bugatti. gaarigan ayaa qiimaha caalamka ka jooga $19 milyan oo dollarka Mareykanka. xawaarihiisu waa dual clutch waxaana uu xawaareeyaa sida faraska. saddex, ganacsade reer Jabaan ayaa diyaariyay mid ka mid ah gawaarida xad-dhaafka ee xawaareeya kaas oo qiimihiisu yahay $14 milyan oo dollarka Mareykanka. gaarigan oo lagu magacaabo Sentex waxa uu awoodaa in uu xawaareeyo 100 kiiloomitir. waxa uu xawaareeyaa 2.4 seconds, waana xawaaraha ugu sarreeya elektarooniga. waxa uu ku xadidan yahay 380 kiiloomitir saacadiiba, wuxuuna leeyahay culays dhan 1976 kilogram. dabayaaqadii 2020 McLaren waxa ay soo saartay gaarigan subarka oo xadidan oo la yiraahdo Sabre. iibkiisa oo xilligan suuqyada caalamka si xawli uga socda waa baabuurka ay soo saarto shirkaddani Sabre. iibka uu socda waa baabuurka lambarka 15aad ee gaadiidka ay soo saarto shirkaddani. naqshad ahaan waxa uu ciyaarayaa qalin iyo kaarboon qaawan oo ay ku xidhan yihiin midabyo kala duwan.